Dadku waxay weligood jeclaayeen inay fahmaan isla markaana ogaadaan in dunyooyin kale oo sida dhulka ah jiraan. 5 meere oo isha lagu arki karo ayaa aqoon yar loo lahaa tan iyo 10 qarni ka hor, kuwaas oo saameyn ku lahaa dadkii waqtigaas noolaa. Waqtiyadii hore, dadka xidigyahanada ahaa waxay aqoon u lahaayeen sida iftiinno gaar ah ay cirka u dhex maraan xidigaha qaar waqtiyada ay soo baxaan, kuwaas oo ay u isticmaali jireen inay ku safraan oogada dhulka iyo badaha waaweyn dhexdooda. Ilbaxnimooyinkii u horreeyay sida Giriigga, Shiinaha, Baabiloon iyo kuwo kaleba waxay aaminsanaayeen in dhulku bartan u yahay dhammaan koonka. Ilbaxnimadii ugu horreysay ee yeelata aqoon iyo fahan meerayaasha waxay ahayd Baabiloon oo ku dhex taallay Mesopotamia waqtiyadii u dhaxaysay 2000 sano ilaa 1000 sano Nabiyullaahi Ciise hortiis. Qoraallo duug ah oo ku beegan 700 sano ka hor Nabiyullaahi Ciise hortiis, kuwaas oo ka haray ilbaxnimadii Baabiloon, waxaa ku xusan liiska dhowr meere oo uu ka mid yahay Venus. Sidoo kale waxaa liiska ku qornaa socodka meerayaasha Venus, Mercury, Mars, Jupiter iyo Saturn, iyo meelaha ay ka iftiimaan waqtiyada habeenkii iyo waqtiyada la arki karo sanadka. Horaantii ilbaxnimada Giriigga, aqoon la mid ah tan Baabiloon uma aanay lahayn meerayaasha iyo xidigaha, laakiin qarnigii 6 ilaa qarnigii 5 ayaa qabiilada Pythagoras samaysteen qaacidooyin cusub oo ay ku qeexaan qoraxda, dayaxa, dhulka iyo dhowr meere oo kale oo ku wareegsan dab bartanka ka ololaya. Pythagorasku waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee sheegay in xidiga la arko qorax dhaca iyo tan la arko qorax soo baxa inay yihiin xidig isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, horaantii qarnigii 1 ayaa Giriiggu horumariyeen xisaabinta meelaha iyo waqtiyada la filayo in la arko xidigaha, taas oo u sahashay inay ku kala ogaadaan xilliyada waqtiyada roobka la filayo iyo inay u adeegsadaan socdaallada safarka. Qiyaastii sanadkii 499 ayaa xidigyahan Aryafad ee u dhashay waddanka Hindiya sheegay in dhulka uu ku wareego xariijintiisa, taasi oo ku qeexay in wareegga dhulka uu ka yimaado dhanka galbeed. Sidoo kale wuxuu aaminsanaa inay jiraan tiro kale oo meerayaal ah, dhammaantoodna ay ku wareegaan shay ka weyn. Laakiin arday baranayay cilmi falaga sanadkii 1500 ayaa sii horumariyay qaacidadii Aryabad, asagoo ku daray in dhulku sameeyo wareeg dheer oo uu ku wareego udub-dhexaad, iyo in meerayaasha kale ah Venus, Mercury, Mars, Jupiter iyo Saturn ay dhammaantood ku wareegaan qoraxda.